waxaan kusoo gabagabeynayaa Soomaaliland oo warwari maayo dawladda xamar ka dhisan oo aad u tihiin inta weerar nagu qaaday ilaa maalintii la magacaabay dekada Berbera mashruuciisa dekada laga bilaabay waxay isu taagtay dawladda Ciraaqaadka carruur u jarayna meedo ka dacweys waa maxaad u horumaraysaa waxa ku xigtay SDF sanduuqa loola jiray Special Fund for Somaliland oo European isku tagayna Somaliland mashaariicda laga caawinayo laga siin jiray baaburan jirtay warqad bay qoreen anaga la ixtiraafsan yahay waa gobol laga mid ah qoraha la qabanaya haddii diyaaraha gudbinina waxa ku xigtay ECA isku dayaan diyaaradaha halka soo maray waxa kamid ah dawladda Somaliland soo dhaweysay ama marti qaadeen cilaaqaadka loo tiroonayaa war waxa xulad gacanta lagu jira meega geeyo in la soo dhaweysay soo dhaweysay waxa ku xigay tukaraq dagaalka ay ku qaadeen Somaliland gudaheeda ay haysteeg u degtaan Somaliland kamid waxa wax laga naxaa in xisbiga wadani kamid amaanahan isku taagaan oo kala dhacaan xamar maanta warbato waxa saysa amaan naga mudan mise in la iska celiyo loo diyaar garoobay cali koobaad oo waqti ba waxaanu ku dadeynaa dhaqanka farmaajo uu labadii madaxweyne ku xiraayay airport ee maanta xamar ay ka gubaysay isagoo oon xukuumin meesha la yiraahdo sida Soomaaliya uu leeyahay labadii madaxweyne ugu xigay hatta dhaqan Soomaaliyeed ma haska dhaafsaasada ka gaalada meel ku taasina maan raacna waxay la tahay meelaha qaar kood aan hubsano oo aan ku dhicin cadawgeena dawladkiisa aan ka digtanaano waxaan ka rajeeyaa ku gaaraya aqoonyahanka jaamacadaha dhakhaatiirta injineerada abwaanada dadka maskaxda fikirka badan lahow talada dalka ka qayb qaata haddii kala tacabkidu khasaaro noqonaya dawladda xamar ka dhisan oo aad u tihiin inta weerar nagu qaaday ilaa maalintii la magacaabay dekada Berbera mashruuciisa dekada laga bilaabay waxay isu taagtay dawladda Ciraaqaadka carruur u jarayna meedo ka dacweys waa maxaad u horumaraysaa waxa ku xigtay SDF sanduuqa loola jiray Special Fund for Somaliland oo European isku tagayna Somaliland mashaariicda laga caawinayo laga siin jiray baaburan jirtay warqad bay qoreen anaga la ixtiraafsan yahay waa gobol laga mid ah qoraha la qabanaya haddii diyaaraha gudbinina waxa ku xigtay ECA isku dayaan diyaaradaha halka soo maray waxa kamid ah dawladda Somaliland soo dhaweysay ama marti qaadeen cilaaqaadka loo tiroonayaa war waxa xulad gacanta lagu jira meega geeyo in la soo dhaweysay soo dhaweysay waxa ku xigay tukaraq dagaalka ay ku qaadeen Somaliland gudaheeda ay haysteeg u degtaan Somaliland kamid waxa wax laga naxaa in xisbiga wadani kamid amaanahan isku taagaan oo kala dhacaan xamar maanta warbato waxa saysa amaan naga mudan mise in la iska celiyo loo diyaar garoobay cali koobaad oo waqti ba waxaanu ku dadeynaa dhaqanka farmaajo uu labadii madaxweyne ku xiraayay airport ee maanta xamar ay ka gubaysay isagoo oon xukuumin meesha la yiraahdo sida Soomaaliya uu leeyahay labadii madaxweyne ugu xigay hatta dhaqan Soomaaliyeed ma haska dhaafsaasada ka gaalada meel ku taasina maan raacna waxay la tahay meelaha qaar kood aan hubsano oo aan ku dhicin cadawgeena dawladkiisa aan ka digtanaano Soomaaliya Ethiopia inta waa la ixtiraafsan inta waa la taageera inta baanka adduunka inta waa la garab taagay Somaliland soddon sano ilaahay mooyee ciidan ma ixtiraafsana ciidan wax hubo oo gola waliba cadow xoog la dagaalamay hadana bifadl ilaahi wa hamdi ilaahi iyo midiisa oo midaysan iyo tashigeena ayaan ku taageerno walba san ka galna waxa ka Soomaaliland gaar soo qaadaya laba dawlad baan wahayn dhixkii midooday ay ka dujay midnimadi isdiray midba gaarkeeda u dhaqaaqday wax gaar u dhisatay soddon sanadood waa la ictiraafaa sanadkii u dambeeyay Mareykanka oo qurihi 140 milyan bus iska dhaaf jimcada qurba ka dhaxaysa iska dhaaf Turkiga oo caafimaad iyo dhismo iyo wado iyo ciidan u dhiso ciidanka ugu dhisay sida ay tahay haddana maanta bal hadda eeg waxa soo la galiyay oo inta soo gaar haysata oo si walba loo taageeray maanta Kismaayo dagaal baa ka socda xamar dagaal baa ka socda oo dawladda farmaajo labadii madaxweyne ku xigay maalmo way xidha waad arkaysaa halka la isla maraya iyo qarax ka taagan dhul samareed dagaal baa ka socda Puntland baa doonaysa wata maanta la qarxiyay waxaana wadada dawladda farmaajo ee waxa soo taageerayay ayaa fidmadaas soo dhawada oo markay intaas oo dhan ka dagaalamayay waxay ka wadaa way waxa soo tababar kuwa ku soo tababaraysa ku soo diyaar garoobisa Soomaaliland oo soo diyaarta colaadeeda oo ay ku soo maqanta Soomaaliland waa ku gaamurtay inay cadawga iska celiso diyaar baan waa aragnaa waxa soo wada farmaajo